howlgal ay sameeyeen ciidanka booliska Soomaaliya ayaa waxay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan xubno la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka DAACISH xubnahan DAACISH la xiriirinayo waxa maanta warbaahinta loogu soo bandhigay xarunta dambe baarista Soomaaliya ee magaalada Muqdisho afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Qaasim Axmed Roble ayaa warbaahinta u sharaxay halka laga soo qabtay xubnahan la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka DAACISH kuwaas oo isugu jira rag iyo haween waxa noo suurta gashay in ciidanka booliska uu soo qabto dhagarqabe ka tirsan ururka DAACISH horena uga tirsanaan jiray ururka al-shabaab oo lagu magacaabo jaamac xuseen xasan waa ninkan weey jaamac xuseen xasan waa ninkani waa eedaysane ka tirsan ururka DAACISH waxa lagu soo qabtay asagoo sameynaya miinadan iyo maaragta arrimahan kamaradii uu ku duubi jiray waatan alaabtii uu miinada ku sameyn jirayna waatan mid ka mid ah xubnaha la soo qabtay oo hore uga tirsanaa xarakada al-shabaab balse iminka la sheegay inuu ka tirsan yahay ururka DAACISH ayaa sharaxaya howlgallada uu qaabilsanaa magaceeda jaamac xuseen xasan marka hore waxaan ka tirsanaa jiray ururka al-shabaab adiga ilaa muddo ilaa 2 sano iyo 3 sano yaa macnaha kamid ahay marka waxaan kamid ahay taliska waxaan u joogi jiray taliska beeraxaane aan u joogi jiray marka ma askarin midna ma soo maran nin kale yar saaxiib aan marka hore ugu soo tashkiilay taliska aan joogi jiray marka inta taliska aan joogo inta iyaga aan la joogo waxa howlgal baan ka xasuustaa oo macnaha afmadow iyo qooqaan laba dhexdooda mar ciidamada Kenyaati oo meelaas ka imaanayeen aan xasuustaa marka midda kale markay ilaa madanaad ilaa muddo ka soo wareegatay intii muddo intaas aan la jiro intaas howlgal oo inta la shaabaan la qabtay intaas ka jirta taliskan u joogo jiray baadul kadib waan ka soo tagay markii dib yar saaxiibkay ayaga dhexdooda qalaaf ku imaaday oo marna waxay dhaheen ururkan aan raacayna iyo ma raacayna iyo macnaha waxaan nahay al-qaacida ama waxaan noqonaynaa ama DAACISH noqonaynaa marka ayaga dhowr firqo kala qaysamay qaar waxay ahayn Kenya ayaa loo dhawaaqay midna Jubbooyinka loo dhawaaqay buuraha oo adiga bariga liira marka meesha marka uu keenay adiga marka dhalinyarada bana marka waxay dhalinyarada markay imaadeen ma askar yar ilaa madanaati oo adiga 40 maalin 30 maalin amal yaan meesha waxay yar dib weeran ku galnay kadib in askari caadi aan noqday muddo markii ilaa madanaati cabaar ilaa 2 sano waqti inta horta la gaaran macnaha waxa lagu soo qaaday waxay iga xamalad qaadeen waxay qabsadeen qandalo markay qabsadeen baadul kadib qandalo markay iga xamalad lagu soo qaaday xamalad oo macnaha ama diyaarado leh ama ifitiri mid bana lagu soo qaaday markay meeshii dagaalka ayada aan ku jiray marka ayaga waxa uu gooriyay 12 qofood oo goortay 2 qofood dhaawacay dagaalka qandalo marka bis كل أسكري عادي ما أنا ليه ما ففاهم ليه مسيرنا ninkaas dilay un baa leeyahay ninkaas dilay baa leeyahay bas xageebu aha meesha aad ku dilayseen boosaas aqoon xaafadda aqoon kala leeyahay boosaas ay ahayd boosaas ay ahayd waa disheen dilno markii dib si wadada caadi aan soo maray waxaan imid xamara imid dib markii wuxuu yiriniyo wuxuu yiri howlgalka caawada ilaa madanaad baasha miinana suubi anigana wuxuu yiri shaqadan soo qabsanayna mootada iigsaday ku qaateen shaqada iigsaday ku soo qabteen marka shaqadii dilka ay askari shaqada dilka sidee ku soo qabteen afgooy ka dhacday sidee ku soo qabteen baadul kadib ninkan uu xanuunsan yahay oo macna diriska qaatay kadib asiga ii sheegay inuu ninku wuxuu yiri nin kulana qaldan noqday nin waa la noqday uga uu dhahay Umar Maxamed Somane Universal TV Muqdisho